nin Soomaaliyeed ee South Africa Johannesburg ka shaqaysanay dukaan buu ku lahaa gabadh South African oo gaalad ah ayaa u shaqaynaysay dhaqankii muslimiinta iyo salaadoodii iyo hawlahoodii iyo bay u bogtay dhowr goor bay ku tiri war inaan islaamaan rabaa ee tawxiidka see islaamka lagu soo galaa diinta islaamka inaan galaan rabaa ee caawi qaabkee lagu soo galaa seen yeelaa nadoofaariya shaqaysoon buu dhihi jiray islaamkaada ma aqaanee shaqaysaan ku uri ay ku soo celisaa na shaqadaada qabso way iska xishootaa maalmo kadib haddana soo celisaa canaan buu dhagaha ka raaciyaa war islaamka inaan galaan rabaa say u lahayd ee islaamka ii geli ama meel kale ii gee ama adugu ii qabo ee asna u wareejin haya u canaanan hayay baytii alla ku timid gabadha way dhimatay sidaasay ku dhimatay aqisa aad iyo aad u xanuun badan gabadha markay geeriyootay ninka Soomaaliyeed war baa galay indhaha markuu isgaliye seexdaba islaantoo socota u imanaysa hebelow inta aad nooshahay baa naari kaa xigtay ku tidhaahdaa inta aad nooshahay baa naari jahannama kaa xigta qalaf markay kaa tidhaahdo jahannamaad geli anuguna hadda waan cadaabana waa lee cadaabaa waxaa la yidhi intuu hebel ka soo dhimanayo ee booskaada lagu bedelahayaad naar ku jiraysaa maalinku asagu qalaf soo yidhaahdo booskaada naarta isagaa gelaya aduguna jannada lagu geynaya saasay habeen walba oo la timaadaa indhaha markuu isgalay riyaa ugu iman intaasay ku dhihi hurtu ka saahiday dhowr bilood markuu seexan waayay oo indhihiisu taagan yihiin oo xanuunkiisi xad dhaaf noqday oo wadaada loogu yeedhay oo quraan lagala samray oo geed walba la mariyo laga samray hadda waxa loo qaaday Soomaaliya Muqdisho jooga asagoo xanuunsan oo waali ahaan ah qisadaasi waa qisaad culus weey adinin la leeyahay intaad ka nooshay baa naari ka xigta oo indhaha markuu isgaliyay baa islaantu u soo istaagi hadda waa hawl xanuun badan weey waali sogon dhimanina nooleyn buu hadda ahalkiisu hayaan maxaa tiri sheekh هاي wadaad Soomaaliyeed baa isxil qaamay gabadhi reerkeedii buu aaday diinka ugu yeeraa waqti badan buu ku bixi reer la yaqaan way maxallu shaahid qisada waxa weeye dadkan gaalada ah ha fudaysanina diinka inaad gaadhisaan ilaahay ka cabsada tawxiidka faafiya diinka u sheega dadka qiimaha idan la yeesho waxaad aaminsantiin masaajidii baad ku jirtaan diinkii baad baranaysaan waa shay qiimo badan waa risaaladii rabbi u dambeysay waa dhaxalkii suubanaheen xilba ina saaran nabiga kaleey salaatu wasalaam gadaashiin nabi lama soo dirayo shariico kale la imanaya mas'uuliyadda idinka la idinkaga tagay idinka inaad sii wadaan way balligu anni walaw aaya nabiga ina diray rasuul baatihiin niyaabatan an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam xilka ayaan la fududaysan adoon af Soomaaliga aqoon ama Ingiliishka aqoon u sheeg tawxiidka saadad ugu celceli saacadaha kugu qaadato markuu tawxiidka ku dhawaaqa kadib cid wax u sharxaysa afka kugu dhaanta ama luqada kugu dhaanta raadso laakiin san dhicin ruux gaala oo ku yiri tawxiidka la ay qabto ama islaamka san ku soo gala inaad meermeeriso iska ilaaliyo khatartaas ay leedahay مرحبا wadaadka islaamta South Africa daba taagan yahay wuxuu leeyahay riyada waxa ku jirtay in loo ballan qaaday oo soo celcelisay markii asagu uu soo dhinto naarta lagu kuuso ayadu in janna la geyn doono maysan shahaadanaysay janna ku tagaysaabo أو شو ما حد قال يدين
hawshaas waxay daba tagaysaa laba mas'ale ku xiran tahay horta waxyaabaha riyooyinkii manaamaadka waa la makhraati gashadaay lama xujaysto wixii manaam iyo riyo iyo waa tii ay wadaadihii suufiyada dadku ku baadhan jireen inshaara arka iyo inshaara hayse iyo xisaabihii aad garanayseen wey marka hadday ishaare iyo riyo wanaagsan tahay waa la makhraati gashadaa waa la weheshadaa qalbigaa loo yar sheegaa laakiin xujo lagama dhigo sida ilaahay baa yidhi ah ama rasuulka yidhi oo kalea lagama dhigahayo waxaa u dhexeeya wax la weheshadaa jira wixii aad baasaysateed kaba shikada iskagaba tag maxaaka fii nafsika fadaxuu dadkan lagama xarimo waxbaad adu ka waswasatay amuu nijaas yahay aduu iskaga fogo ummaddana waa nijaas ha ku dhihin waxbaad ka waswastay inuusan xalaal iyo xaaraam yahay wixii adugu kaa gala shiki iskaga fogow ixtiyaatan ummaddana ha ku adkayn xaaraam hadhe halkaa u istaagin riyada noocaas waa la weheshadaa laakiin xujo lagama dhigto taa waa masalo masalada labaad gabadha waxaa dhici karta inay janno gasho sababku waa maxay laba masala kala jiraan la isku khaldin in shaataynka lagu dhawaaqa ama shay la macnaa lagu dhawaaqo ruux uu la yimaado waa shardun lisixati alislaam waa shardi aan islaamku asaxaynin la'aantii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ama shay la macnaa innii muslimun iyo aslamna iyo hawlaha la midka oo dhan waa islaamka lagu soo gelaya waana shardi ruux inuu la yimaado laakiin goormay shardi tahay waa markuu ruuxu kari karo ee uu yaqaano ama haddii loo sheego uu ku hadli karo ruuxii laakiin islaamka rabay ee niyeystay inuu islaamo oo islaamka intuu wax ka soo akhriyey islaamka wanaaggiisa aaminay ictiqaadiyey raadinaya in carabka loo mariyo wix lagu soo geli lahaa wax u mariyana waayey saana ku dhintay ahlu janno wey hawshaa si fiican u fahma النطق بالشهادتين وما في معناهما قرمو شرطي هاي وشرط للقادر روح أودوي قرانيا لو شيء كرو روح لك أن قرنين حق نقو أنصدي إسلامك شعل هذي قلبك قليي اعتقد قلبا لكن كما هل عرب أهان للعجز عنه وأودوي سيدا هذا قبضا وننك الصوماليات كو أدكي دوفاريا شقيسو كلها كنا في بعضي ما كسب وقت تكتي مي كري كرتي إذن ورأي حق بدن إن روحها سكول أهل الجنة نقني رقبة بإجماع سوغوريي النطق بالشهادتين وشرط إجماعا للقادر عاجزكن وكدع يا شرط معها اعتقاد كان مركز صوب الوبد بادية عجزي هذا ما كري كرتي يا ها غير هذا كرتي هذا يبقى الاسلام كاتق انا ادقنا في جس حقي ادا علمي عجز واسو خلاف كرا انا waxaan rabaa taqriir ka masalada ruuxa caajiska kari waaya ashhaadateynka أما وحي الله معناه وإسلام بالله اعتبرنا بدليل حديث قصة جذيمة صبانا قولي يجي محل لو اعتباري إن المسلمين أسلمنا ما يزندهن إن المسلمين ما يزندهن أشهد أن لا إله ما يزندهن إلا الله وأشهد محيل سو يستاجي كلمة ظاهر كذا هي عاي إسلام كلا عاي هاي لكن أيوة يكودين اسديبنا الدين تمن ربنا gabadhan dhowr bilood cilcilinaysa wariyay qabo oo meel igee in ay noqo ee islaamka aamintay ictiqaadisay haddaysan kari karin inay shahaadato culuma qaba inay ahlu jannah ay saako islaamayso marka wadaadku su'aashiisa inaan ka jawaabay ila tahay riyadan waan ku sheegay gabadhuna waan ku sheegay waa hadday hawshaasi tahay mid sugan wal ilmu inda Allah